Your Excellency, karibu. Wewe uko nyumbani hapa, vile unajua wakati wewe ulikuwa kwa ofisi umefanyia kazi watu hapa. Kwa hivyo watu hapa wanakupenda. Inoo imaade waa mahadsantiin cidiina imaateen horta. Annaka walaalanahanna Soomaaliyaanahanna waxa soo jirsateena ma halaynin waa imaateen. Kariibuni sana. Tan kala waxa imaade waa maamadayn oo abtigeeya 7 wiil u dhashay. Maama Nasri ninkii maamadaas ay keentay annaga si u nacayn ma aqaan. maamada cid ku keentay cidaadaad imaatay soo dhawow. Kan kalena waxa waaye Shaalo Abdullaahi Yaxya waa wiil la yaqaano oo aqla ah. Cidaadana waa la garani. Waa cid antila oo fiican oo dadka سعيدينس مركزتا بلانكي نعرف فوزاني يا فوزانيو بس أنا سورين خوفة يو أنكورا فلادي بيرا دبلك أم بونش الله أرجع يا أرجع نبيكا يو وير كورا إسا بونش الله أرجع أنا نيسا أنا إمبو جام بويلة إمبو وانت إمبو نفي وريبونا يا ناكالشيدان وريبونا نامبو تشينا ناكالشا نوكالشا نوكالشا يا إسا كذا نوكالشا نانيورا لي يويا شالو يويا inteltena nasri yoya marka waa salaamantii reer buuna anile namreer buuna namreero maxamuud buuna miti namreero maxamuud galbariis miti ana namkan waaqlayo galbariis reero maxamuud ayaa ka sii galbariisan soomaho marka ani waxaan nin reero maxamuuda galbariis iyo reero maxamuud waa walaala sooma إلى زماني وادتك هالك إسلا جوجي جري نكنا ومحمد سبير وحان ربا ما أنت إنا نركرين بونا إنا نهايين كلا جبر جلبريس إنا نهايين كلا إنا جبر سبيرتي أهايين كلا جبر ميلوج إنا نهايين كلا جبر جريري إنا نهايين كلا أنت كلون جرنا إنه عدة رير جلبريس ودن سوميه maamadiin inaan hay waa ay tusteen maanta farxadaan la ooyni rabaa aad iyo aad u mahadsantihiin waad noo soo baxdeen ma sha Allah laakiin maanta hiilaan idinka rabaa hiilada aan idinka raba waxa waayay codka ma isiinaysiin reer buuna ma isiinaysiin codkaas oo Governor Ahmed Ali Weerar number 1 deputy-giisa oo Maxamed Yusuf Professor Cilmi Shaalow oo sanataagi oo dumaashigeeye aniga oo maamadiini oo women rep Nasri Sahal Ibrahim kuuraha ma nisiinaysiin bismillah alhamdulillah waan salaan kadib reebuna aniga 9 bilood Ahmed Ali Mukhtaar al horta leedaha weerarna waan ku magac dheerahay sidaad arkaysaan hadda ya ninkan waa weerar ninkan arkin hadda arkaya laakiin waxaan rabaa reebuna line up kan maanta idin hortaagan waxa kamid ah walaalkeena Shaalow oo ah reebuna Shaalow soornin reebuna maaha cidi ajuuraan intay fariisatay tashatay ninkay soo qaadaso Shaalow maaha Shaalow aan rabaa aniga inaan kuuro ooga doono wajiga South oo kuuraheeda uu yahay 60,000 إن شاء الله تعالى وحن جعلها بقولك بسقاشن أما واحد كده إنه كورها سيسهله كورها دنسوسيو أنا كم حنكرر بأمريكا أنا كنا بديل أنكرر بسمة يا أنا كنا حنكرر إن ليس دورت شالو وعدا كنت شتى أنا كم صارن فرفر سامعها عدا جورن سوق ما يكتشنين 2013 ولا لهنا أجران واي مهتسين واي فريستين وحي سوق قاتين ننسى حبكيا والله ده إنه سما بقول كبا بقول ودورتين بقول كبا سجاش أن جافنا جوتي محمد عبد ما دورتين 2013 ودورتين 2017 واد فريستين وحد سوق قاتين سنة كبرتها سمان ما دورتين مسا ما دورنين جافنا جيسنا دتك لسه أنا كمدها 2013 وحن لسعودي محمد عبدي because of NO 2017 وحن لسعودي محمد عبدي because of كبريتا
maanta markaan la socdo shaalow maanta shaalow aniga markaan la socdo haddii la ii dooradan waayo ka warrama ceeb ma tahay mise maaha waxaan rabaa aniga maanta in la yihiiliyo reer Buna oo la soo doorto oo kuura la isiyo aniga iyo ninkan walaalkeenna halkoo cod aan noo dhacayo kuura gooni ma dooran ma codsanayno aniga markii la doorto shaalow iyo walaashan uma hadlaya iyaga waa reer Buna labadoodaba Soomaan aniga 9 bilood aan ahaa deputy governor 9 bilood 9 bilood meedin soo booqda mise meedin soo booqanin soo Buna ma imaanin wax ma ka qabanin mise ka qabanin aerobortkii markii Korondile la inaugurate gareynaya hagaajiyay aniga bixiyay mashruuci labadeena arrinkaas aan ku shirkownay mashruuca aerobortka ayaan ku shirkownay asaga anigana mashruuci aan bixiyay asagana shaqadii buu qabtay labada qof oo marka aerobortka idin dhigto waa labada qof oo idin hortaagan mid labaad booyad cusub ma idin keenay mise ma idin keenin soo abaarta ma shaqaynin 9 bilood 100 milyan oo baasari Korondile kuma launch gareyn mise kuma launch gareyn soo dadka wax ka hayaba yaraatay wax kama soo gaarin inta iyo ka badan ayaan rabnaa inaan qabanno insha Allah taala waxaan rabnaa markaa inaad garab inoo noqotaan kuurahiisna na siisaan county-ga governorship-ka aad na geysaan si aan idinkugu khidmayno insha Allah hadduu ilaahay nagu guuleeyo maxaan qabanaynaa shaqooyinka aad arkaysaan aan bilaawna ayaan rabnaa inaan sii laabno maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah arrinka biyaha waan ogsoonahay waddankan ceelashiisa way ceelal xun yihiin waxay u baahan yihiin county governor hadduu joogo oo 5 sano ilaahay ku guuleeyo county-ga lacag badan soo gashaa every year 10.5 billion plus soo gashaa waxaa la sameeyni karaa every sub county very big mega dam laga sameeyni karaa oo issue-ga biyaha lagu xalliyo meelaha aan biyaha lahayn oo ceelasha aan laga qodi karin sida Habaasooyne iyo caday masaajida oo kale anaga dhinacaasi biyaha dhibkiisa wuxuu lagu xallin karaa bas in la qodo ceel less than 10 million issue biyahana wada damaynaysa Habaasooyne iyo caday masaajida iyo laakiin halkan maxay u baahan tahay shaqo inta ka badan Soomaa waxaan rabnaa marka arrinka biyaha insha Allah taala inaan wax ka qabanno waxaan joogay 9 bilood waxaan qabanay 8 iyo 10 ceel ayaan qodnay only 3 dry ka ayaan 15 way wada shaqaynayaan waxaan rabnaa arrinka caafimaadka naftiisa inaan wax ka qabanno Buna isbitaalka hore iyo midka cusub ee la dhisay iska xiran dhamaan waan wada tagay waxaan rabnaa isbitaalada inta la dhisay kibilayda ay ku dhalayso sidaas oo kalena sida loo furi lahaa bilooyinka ugu hore inaan ka shaqo galno insha Allah taala oo loo qalabayn lahaa arrimaha dhadhacayo meelahan oo kalena dhaqaatiir specialist loo keenin lahaa oo uga shaqayn lahayn waan ka xumahay ilaahayna ha noo caafiyo walaasheenna maamadii uu waraabaha cunay maalin hore maama Cabdiya ilaahay ha caafiyo faataxada umara maamadaasi specialist haday jiraan lama geeyeen ilaa Kenyatta Hospital waxaa lagu daaweyn lahaa Buna haday Buna awoodi waysan wajaray marka ugu fogaato referral hospital-ka la geeyni lahaa waxaa loo geeyay ilaa Kenyatta waxa waaye qalabkii inuu yaalin isbitaalka dhaqaatiirtii specialist waxa soo kala qaban lahaayeen in ay yaalin iyo daryeelkii loogu talagalay governor-ga iyo county-ga inay wax ka qabataan waxba ka qaban haynin arrimaha waxaan rabnaa insha Allah taala inaan wax ka qabanno isbitaalka referral-ka maalintan imaanayo hospital-ka city scan waxa loo aadi jiray Nairobi iyo Garissa looma aado had radiology waxa loo aadi jiray Nairobi iyo Garissa hadda looma aado waxa loo aadi jiray maxaa weeye bas generator oo kiciso qalabkaasi oo meesha bay yaale bas ay u baahneed generator 500 kVA generator baan keenay issue koronto qalabka yaale soo wada kiciso ayaa hadda isbitaalka yaallo waxaan rabnaa markaa intaasi aan tusinay 9 bilood inaan xoojino si aan uga badino si maamadeena maama Cabdiya oo kale ama musiibo noocaas oo kale haday nagu imaato aan loo geynin Kenyatta oo loogu daaweeyo Wajir Referral Hospital reer Buna marka waxaan rabnaa reer Buna mismaqalna gacmihina aan arko warta ilaa ismaqlaayna gacmihina aan arko
aad baad mahadsantihiin waxaan rabnaa marka oo dardaaraniga ragga iyo gabadha socota meeshan dhammaantooda waa reebuna runtii dhammaantooda waa reebuna inaad garab u noqotaan oo ilaahay aad u baridaan oo xafiisyada ay doonayaan wax yaroo kuural dhaho bas idinkiga baahan yihiin laakiin waa rag shaqada ay doonayaan khibrad u leh ma garanaysaa ninkani waa professor shahaadada ama jaamacadooyinka dhalinyarada gabdhaheenna iyo wiilasheenna aad u diraysaan shahaadada dadka bixiyo aha ma aha professor kale oo jaamacad baro chancellor ba ku ah jaamacad the first chancellor oo Soomaali ah oo jaamacad ka noqdo nin wuxuu ahaa military ka ku gaaray darajo ilaa cornel ninkan aad arkaysaan waay khibraddeena dhiman miyaa jirto weerarna waa nin ka soo baxay jaamacad islaami ah ma aha jaamacad maadi ah ninkan aad arkaysaan nin kale ma haya waa nin ka soo baxay jaamacad islaami ah oo la dhaho jaamacatul ifriqiya alcaalamiya oo suudaan kasto ku taalo nin waxa waaye marka isagana alxamdulillah diinta wax ka garanayo jecel inuu wax u qabto muslimiinta iyo arrimaha diinta walaalkana shaalo waad garanaysaan idinma faafahinay walaasheenna gabdhaha socdo waa gabdho badan aad u wanaagsan gabdhaheena way dhamaantooda gabdha aad u fiican waa laakiin midani waxay dheertahay da markii la dhaho da waa hayin gabdhaha kale waa gabdho yar yar oo aad u wanaagsan laakiin maama hayin waa da'deedu waad arkaysaan haddee gabdhaha kale waxaan leenahay kuba dambaan ayadana siini doonaa maamadaasna ayadana da'deeda iyo khibraddeeda haddana baarlamaanka ayay ku jirtaa baarlamaanka hadda la jebiyey ayay ka mid ahayd waa nominated MP bay ahayd shaqada ay raadsinayso marka waa shaqo 5 sano ee hadda la soo dhaafay ay ku jirto ay khibrad u leedahay hadda ayadana way abtirsataba ya reebuna iyo geelbariis kali kuma ay si istaageen maxay dhahay marka de maba garanayo hadda arrinkeeda in laga hadlaba hataa ma gabdhaha arrinkeeda in laga hadlo ma laakiin weerarna waa in loo fiiriyaa wuxuu la socdaa shaalow iyo ayada Soomaa asagana waa ya asagana sibirtay uu la dhashay waxa way asagana waa charooto waa marka ya Allah halmaameen teamkan khayr Allah idin siiyo aad iyo aad baan idin kugu mahadnaqaynaa waxaan jecelnahay annaga hadda wareeg dheer aan sameeynaa wajiga maxaa la dhahaa Butte oo dhan aan maraynaa Butte iyo Korondile waxaan maraynaa wajiga north oo dhan Butte Korondile maxaa la dhahaa Danaba everywhere Ajawa ninka idin ku soo noqoni doono waxaan rabaa inuu ninkan noqdo aniga wajiga south aan xoojiyo iyo wajiga east aan xoojiyo asagana halka north western hada wiilkeena baa jooga oo professor hada kuriina waan eegi doonaa adduunkii hore ma jiro waxa la isku hayaa wad garanaysaa Soomaa habaansooyna iyo tuulooyin yar yar oo meelahaas dhilmeelay yaldaan aad idinkaga soo eegaya marka wiilkan inuu soo galo hadaad rabtaan idinkoo raalli ah oo aad iyo aad u mahadsan weerarna il raxma lagu soo fiiri aad iyo aad baad mahadsantahay khayr Allah idin assalamu alaykum warahmatullahi codkii dhammaa oo cadda soo gashay gobta Soomaaliyeed oo isgarabsado geesi weerar doorto gacmaha isqabsada mawada jirbay wax ku gooyn karan gacal iyo xigtana lama kala gure geesi weerar doorto ku geedigala